بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي mahadle cashirkan caawa waxaan kaga hadlaynaa waxaan sameeyay imka balayn cusub maadaama waqtigu igu adag yahay balaynkaas oo ah hadba ereyga iska adula 6 micno 5 micno 4 micno 7 micno ereyadii baa saasa ingiriiska badankiisa marka ereyga micnaha badan labaan soo ururnaya jumlad baan ka sameynaya isagii oo weerisi oo isku dabaya loo micnaysan oo garanaysa soo dhigaya insha Allah hadii Ilaahay ogolaado waayahay maanta waxaan ka hadlaynaa ereyga take inta micno iyo ereyada si raaca oo micnayaasha kala u sameynaya ko waa take waxay noqonaysaa waa verb marka hore take oo qaadasho marka koowaad ama qaadid ama qaad wax noocaas ay noqon saddexda shay way noqon kartaa wax la soo qaado iyadoo jumladaha way ku jirtaa oo aan diyaariyay take a back waa verb yaduna ka yaabid ama waxaad ka wareerto waana verb take after waxa weeye adjective macnaheedu sifo u eeg ama shabaha macna labaad bay noqonaysaa verb bay isku bedelaysaa cayrsasho ama eriyasho ama waxaad eriyanayso ama cayrsanayso oo kale ama qof cayrsanayo kala wada oran kartaa take a back take after baa iyadoo noqonaysaa cayrsasho ama eriyasho marka dambe isku bedelaysaa markii horena waxay u eegaansho ama shabahid marka sifo iyo verb labadaba way ficil iyo adjective way noqonaysaa take apart kala dhigdhigid ama kala furfurid sida alaab stulta loo bani kala furfurto marka dhigdhigto sida waxyaabo isku urursan kala furfurayso kalena waad oran kartaa take apart waana verb take away waxa la yiraahdaa maqaaxiyaha ama meelaha maqaaxida cuntooyinka laga qaato in lagu cunin ama cuntooyinka fudud ee markaaba la qaato ayaa la yiraahdaa take away non way meel bay sheegaysaa meherad amal oo kala cuntooyinka laga qaato oo barbar non bay noqonaysaa way take back marka hore waxay take a back oo iyadoo waxay verb ka yaabid ama ka weereerid bay tani waa take a back iyo take back bay kala yihiin take back waa ku noqosho qirasho qof gaf ka dhacay inaad gaf macnaheedu qof ku sameeyay aad qirato mar labaad waa verb badana qodobka labaad dib ula noqosho ama dib u ceshasho waxa dib ula noqoto kale way noqonaysaa take back take down waan garanay take down waa verb kala saarid ama kala furfurid way qodobka labaadna waa verb iyaduna macnaha labaad ficilka wax hoos lagu kala dhigo macnaheedu erey markaad kala dhigayso sida hakadka ama pointiga aad dhigayso kale ereyga kala turkinayso waan garanay iyagoo jumlad ahaan waan bilaabaynaa waxay nagu horeysay take waxay noqotay waxaan ka sameeyay jumlad please adoo raaliyo take me isoo qaad that bin qalinka way today maanta macnihii labaad baan hadana ka sameeyay today maanta win markii ay wake up aan kacay suddenly durbadiiba sudden waa dhaqso waxay noqonaysaa wax durbaa suddenly durbadiiba way noqonaysaa marka durbadiiba I take waxaan qaatay a key furihii for my car ee gaarigayga markii aan toosay waxaan qaatay furihii gaarigayga today when I wake up suddenly I take a key for my car waayahay hadana take after bay nagu xigtaa those things shayadaasi take after waxay u eegyihiin ama ay shabahaan ancient things shayadii hore ama qadiimiga ahaa take after waa adjective waa sifo the policeman ninka booliiski take after wuxuu cayrsaday children caruurta uu kaasoo broken jabiyay the window daaqada ilmihii daaqada jabiyay ayuu cayrsaday booliisku way hadana maxaan dhaanay take part oo qaybtii labaad macnihii labaad this pile alaabta pile waxa la yiraahdaa alaabta isku dul rasaysan hadda marka goods baa raaciyo iyaduna alaaba this pile goods alaabta rasaysan
please adorally take apart kala furfur ama kala dhigdhig. waayahay waxaynu dhaanacnay take part qaybteedii labaad macnihii labaad isku bedelaysay. Are you sure ma hubtaa that cotton macnihii suufkaasi needs inuu u baahan yahay take apart in la kala furfuro. cotton waxaa la yiraahdaa suufka ama cudbiga marka la isku dhayo la isticmaalo, waana verb take apart oo ficil la sameynayo. My town magaaladayda ama gobolkayga increase waxa ku kordhay the take away restaurant cuntooyinka la qaato hoteelada laga qaato ee aan hoteelka lagu dhex cunin waa non take away, waliba barbar non weeyaan. waayahay haddana take waxaynu isku dhaadhacaynaa micnaha take. waxaan marin increase. waayahay I am taking back my travel waxa aan dib uga noqday ama aan ka noqday safarkayga. I take back my travel waa verb take back. I'm taking back my mistake waxa aan macnihii la take back waxay micnaha kale noqonaysaa waxay noqonaysaa ka noqosho ama qirasho gafaad gashay. I'm take back a mistake about my friend qaladkan saaxiibkay ka galay baan dib u noqday ama dib u garawsaday bay noqonaysaa. waaye maxaa ku xiga take back la noqosho ama dib u noqosho ama ceshisho waxa dib u ceshato. I'm take back contribute the poor people. I'm anigu take back waxaan dib u noqday ama dib u ceshay contribute ugu deeqidii the poor people dadka faqiiriinta aan wax ugu deeqmo macnaheedu wax siintii. You must waxa kugu waajiba take down waxay noo tahay kala saarid ama kala furfurid ficilka wax lagu kala saaro ficil wax hoos looga kala dhigo sida erayada loo kala saarayo kale. You must take down waa inaad kala saartaa all sentence-yada ama jumladaha. tii ugu dambeysay baan filayaa tan inay tahay when I finish markii aan dhameeyay work shaqada I take off waxa aan iska saaray ama marka dharka la iska saaray take off loo isticmaalaa all my clothes dharkaygii oo dhan. waxay noogu xigtaa take a back. I am anigu take a back waxaan la wareeray ama la yaabay bay noqonaysaa his idiot macnii doqoniimadiisii ayaan la yaabay. waa verb take a back iyo take back bay kala yihiin. take a back way tani oo ku mahadsantihiin. waxaan idiga codsanayaa erayga imka Englishka iyo Soomaaligu oo si kala duwan yihiin. Englishka waxa ku badan eray kaliya oo 7 micno ama 8 micno ama ka badan oo hadba jumlada saa doonto aad u isticmaasho jumladu ay bedelayso sentence-ka bedelaya. marka erayada hadii ayna dib kugu ahayn commentiga igu soo qor eraygaas oo micno badan yeesha si aan jumladu uga sameeyo cashar uga sameeyo si aan dadkeena walaalahaayna aan ugu gudbino. adiguna waad ka qayb qaadatay intii wax aragtay fahanta adna waad leedahay ajarkooda. waanad ku mahadsantihiin daawashada. subscribe-na ha ilaawina. waa mahadsantihiin. salaam.